ninka shaqaalaha dawladda hoose ee meediyaha ka cabanaya waxaan noo haynaa faldambeed aw galay oo muuqda oo cad oo aan markii ugu horeysay aanu internet audit ahaan saldhigga ku geeyay saldhiggana aan ku wareejiyay gudoomiyaha oo suldaanada uu ka barayay uu ka codsaday ayaa saldhiggii ka aqbalay buu ka soo daayay damin buu ku joogay aan xisaabtanna baanadhi buugga aad arkayso ee nambarkiisu nooca yahay gebigiisaba waa la gubay buu yidhi waxaan sugayay ilaa 6 bilood xisaabtaasina ma xidhmaysan ilaa buuggii la helo ayaa dhaweyd ayuu qashinka yar dambe isagoo bahasha ku wada ayuu ii keenay wixii gidaafad baan ka soo helay waa kan buuggii waa yahay buuggii maxaa lagu sameeyay waa nambarka aad arkayso 363001 waa buugga ka bilaabma waxa lagu sameeyay example nambarka noocaasa ee uu qabtay lacagtaasi mar wuxuu ku qabtay isla nambarkii 500 mar kale wuxuu ku qabtay 100 laana waad arkaysaa waaye 100 laankii ayaa khasnada tagay 500 oo kale ayaa jeebka lagu shubtay waa kale different waa buuggii oo triplicate-kii iyo originalkii labadiiba original ahaan loo isticmaalay waxa kale oo jirta kan kale example waa la mid isaguna marka waa 500 isla nambarka waa 100 kii kale la mid yahay waxa kale halkan ku hayaa 5 milyan oo aan xiroonin waxa buugiisa dhabarkiisa qaarkii ku qoran ribooda uu isagu qoray uu leeyahay saldhigga dhexdiisa ayaa lagu sii daayay qofka caynkaasa ee lacagtaan ka qaadayay Umar Buur baa joogay hebel baa joogay ha joogay ma oo biba lagu qoray maxaa lagu kansargay maxaa lagu macneeyay way aanu macneeyaashaas oo dhan oo distar baan ahayn ma garanayo hantida ku qoran ma xarootay mise ma xaroon weey waxay ma xaroon weey bashanta milyan way taagan tahay intaasoo milyan oo kalena xisaab ahaan waan ku hayaanu waxaad arkaysaa buugga markii qofka loo jaray ee lacagtii laga qaaday ee lacagtii la isticmaalay dabadeed haddana waa la kansal gareeyay inta qofkii laga soo qaaday exaamalo badan ayaa halkan ku jira waa la mid bahalkaasi sidoo eegay kamarada haday qabanayso kaasi jeebka lagu qof bini'aadmiga laga soo qaaday dabadeedna dib baa loogu dhajiyay lacagtiisina waa la cunay sidaa darteed qoladayadan deegaankan Gadabursiga waxa lagu yaqaanay inay dadka shisheeyaha aad u soo dhaweeyaan oo ay waliba tixgelin weyn iyo ilaalin weyn loo sameeyo intii aan ilaalin karaynin in dawri karaynin ka waan dhowrnay waliba maayarku lacagtii uu iga xareeyay xisaabtii aduunba lagu sugayaa xisaabtaadii waa tan ka jawaab waxaan ku weerina ku yaalay ya oo saldhig iyo wixii xaqay ka dhaceen cadde taliya saldhigga hore leeriyay ee la bedelay anu xaqeen ka keeni marka waxa weey ilaalin badan baanu lahayn daryeelaanu lahayn waliba xuquuqdiisa ku xadgudbin oo dhidahan ayaan islaha maayarka wali kalamaan tashan laakiin isaga war xisaabtaada noo saxoobaan ku kari waayay agaasimaha maaliyadda cashuuruhu waa kan weli jooga ninka maanta media ka hadlay Maxamed Cabdi Xaashi waxa weeyaan dambiile sameeyay forgery aan lagu aqoon shaqaalaha aan lagu aqoon oo la aqoonba ayuu forgery sameeyay kopiga
warqadda sare wuxuu ku qorayaa qofka uu siinayo 1,500,000 markuu ka qaaday 1,500,000 xaashada hoosena 100 buu ku qorayaa taas oo tobaneeya arina ayaa la soo qabtay waa lagu eedeeyay waa lagaga joojiyay mushaarkii iyo lacagtii iyo shaqadiiba sababtoo ah de waxa weeyaan inta kale ayuu sii qurminayaaba oo baabiinaya taa awgeed waa lagu xilay haddana waxa laga maarmi waayay de dhaqan ahaan damiin baa lagu siiyey salaadiinta iyo madax dhaqameedada degmada isagoo yaani la leeyahay waa meel shishe anoon jeclayn maanta inaan ka hadla halkan isaga ayaa la keenay maadaama aan ahay agaasimihii waaxda cashuura waxa weeye dhaqameed baa lagu siiyey waxa lagu sii daayay oo dhaqameedada ayaa la siiyey iyo salaadiinta ayaa damiin hal lagu siiyey ka maamul ahaana maaha cid maamulka degmada sidoo u dhan yahay fulin iyo agaasimiyalba waxa la isla gartay in shaqada laga joojiyo maadaama uu faldambiyeedkana aanu ahayn mid fudud hal xaashada baa ku filan oo originalka iyo kobiga laba lacag ku kala qoro waa dambi waxa weeyaan waqtigii hore maayirkii hore xataa iyo maayirkii ka sii horeeyay waqtigaas oo dhan baa la isticmaalaya waxan oo deydka ah marka taasina tu loo dul qaadan kara maaha tu dadka shaqaalaha uu barayana maaha oo uu barayo oo lagu sii dhexdaayo ma noqon karto maanta isaga ayaa maanta laga hadliyaa halkan ka agaasimo ahaan sababtoo waa shaqadeydii waa professionkaygii waxa weeye intaas oo dhan waa iska dhagatireynay run ahaantii aniga waa seedigay ninkani mana jecli inaan ka hadlo laakiin maanta isaga ay yeedhay waa shaqadeydii ayuu waliba maanta leeyahay si dulmiya ayaa waxa iga lagu haystaa mana noqonayso taa ma noqonayso wax lagu haystaa wax xaqa oo waliba loo xadaaf loo sameeyay xadaaf baa loo sameeyay يعني إن حدقد بالوسمين لسيد دايو ما هين وحويان تاسين يسقى يسكو جيستي ما تينو هذلنا ما هين هذا الكيسان أنا كيري ماش وأنا وح فوجري وسمي فوجري يقوله دم بيجارو لي